maalintii sabtidii ee toddobaadkan waxaa magaalada Hargeysa socdaal ku yimid safiirka Shiinaha u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Qin Jian hase yeeshee muddo laga joogo 3 maalmood oo Hargeysa ku sugnaayeen safiirka iyo wafdiga hogaaminaya oo ka tirsan safaaradda Shiinaha ee Muqdisho ma jiro wax kulan ah oo dhexmaray wafdigan iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi balse sidoo la xogaal waxa xaqiijiyay rasmi news online waxa wafdigan qaabilay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Liibaan Yuusuf Cismaan iyadoo waqtiga Soomaaliland dibadda kaga maqan yahay wasiirka arrimaha dibadda Yaasiin Xir Faraton ma jiro weli xog rasmi ah oo laga helay sababta ay u suurtagali weyday in safiirka Shiinaha ee waddanka Soomaaliya kulan uu rabo inuu la qaato madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi balse dhawaan Shiinaha ayaa si weyn uga soo horjeestay xiriirka diblomaasiyadeed ee uu la bilaabay Soomaaliland iyo Taiwan ay bilowdeen iyadoo dhowr jeer Shiinuhu isku dayay inuu joojiyo xiriirkaas isagoo adeegsanaya dawladda Soomaaliya hase yeeshee Soomaaliland ayaa iyadu horeba u cadeysay inay sii wadayso xiriirada ay la sameynayso dawlad kasta oo ay danaheeda ka dhaxarto iyadoo xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan uu taageero u muujiyay Mareykanku safarka uu haatan ku joogo magaalada caasimadda ee Hargeysa safiirka Shiinaha u qaabilsan Soomaaliya ayaan la saadaalin karin wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Taiwan ayaa sheegtay inay ka taageerayso Soomaaliland qorshaha ilaalinta xeebaha wakaaladda wararka Soomaaliland ee Sola ayaa soo xigatay qoraal dawladda Taiwan shalay ku baahisay barteeda Twitter-ka taasi oo ay ku cadeysay inay Soomaaliland ka saacidayso ammaanka ilaalada xeebaha goobta ay dawladda Taiwan ku sheegtay fariintan ayaa ahayd xaflad maalintii saalisadii ee toddobaadkan lagu soo bandhigay markab noociisu ku cusub yahay dalkaasi markabkaasi oo ah kuwa dagaalka ee xambaara miinooyinka oo qaybo ka mid ah la dhameystiray isla markaana lagu wado inuu si rasmi ah u dhameystirmo dabayaaqada sanadkan 2020 markabka ay Taiwan soo bandhigtay ayaa dhererkiisa lagu sheegay inuu dhan yahay 41 mitir wuxuuna qaadi doonaa sanaddan 374 iyadoo wasaaradda gaashaandhigga Taiwan xustay in loogu talagalay inuu ka hortago wixii khatar ku ah dalkooda laguna qalabeeyay qunbulado loogu talagalay wakaaladda wararka Soomaaliland ayaa sheegtay in istaageeridani ay ka dhalatay iskaashi iyo wax wada qabsi ayay yidhaahdeen ay yeesheen Soomaaliland iyo dawladda Taiwan iyadoo sidoo kalena warqadda wakaaladda wararka lagu sheegay inay labada dal isdhaafsadeen laba safaaradood isla markaana ay iska kaashan doonaan mashaariic la xiriira ganacsiga beeraha iyo kalluumaysiga magaalada Beirut ee dalka Lubnaan ayaa gashay xaalad horle kadib markii ay dad cadaysan dhigeen dibadbaxyo looga soo horjeedo dawladda dadkaasi mas'uuliyiinta dawladda ayaa lagu eedeeyay inaanay si wanaagsan u maareynin dhibaatadii ka dhacday halkaasi waxaa wadooyinka waaweyn ee magaalada ay ka mid yihiin kuwa gala dhismayaasha baarlamaanka la dhigay ciidamo kuwaasoo sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eriyay dadka ka cadaysan ficilada dawladda dadka ayaa ka cadaysan qaraxyadii waaweynaa ee ka dhacay talaadadii magaalada Beirut kuwaasi oo ay saraakiisha dalkaasi sheegeen inuu ka dhashay 2750 tan oo maadada aluminium nitrate oo aan si wanaagsaneyn ugu kaydsanayd bakhaar ku yaalay dekedda tan iyo sanadkii 2013 dad badan oo reer Lubnaan ayaa waxay aaminsan yihiin in dayacaad dhanka dawladda ay sababtay qaraxyada ay ku dhinteen 137 qof halka 5,000 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen maalinta xadda ayaa lagu wadaa in dalkaasi ay ka dhacaan dibadbaxyo ballaaran oo lagaga soo horjeedo dawladda hase yeeshee waxaan la garanaynin sida ay dibadbaxyadaasi ay uga sii dari lahayd xaaladda guud ee dalkaasi Lubnaan oo haatan la daalaadhacaysa waxyeeladii qaraxii ka dhacay dhibaatada dhaqaale iyo weliba sidoo kale saameyntii uu ku yeeshay cudurka coronavirus qaraxyada dhacay ayaa burburiyay guryo badan oo ku yaalay caasimadda dalka Lubnaan ee Beirut waxaana ku guryo beelay dad lagu qiyaasay 250,000 oo qof dad badan ayaa weli la laayahay kuwaasi oo qaar ka mid ah la aaminsan yahay inay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay wakaaladda wararka ee dawladda Lubnaan ayaa sheegtay in musiibada dhacday loo xidhay 16 qof qaybna ay ka tahay baaritaanka ay bilowday dawladdu tan iyo markii ay dhacday musiibadu waxaa xilka iska casilay 2 sarkaal xildhibaan Marwan oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee dalkaasi Lubnaan iyo safiirka Lubnaan u fadhiya Urdun
kuwaasi ayaa sheegay inay xilka iska casileen xilkii ay u hayeen xukuumadda Beirut, waxaanay sheegeen musiibada dhacday kadib in loo baahan yahay isbedel dhanka hoggaanka ah. sidoo kale madaxweynaha dalka Faransiiska oo booqday magaalada Beirut kadib qaraxii dhacay ayaa sheegay in Lubnaan u baahan tahay isbedel la taaban karo oo dhanka hoggaanka ah, wuxuuna ku baaqay in baadhitaan caalami la sameeyo. Dekedda ay qaraxu ka dhaceen ayaa ah halka ay ku tiirsan tahay Lubnaan, waxaana laga soo dejiyaa 80% waxyaabaha loo soo dhoofiyo dhanka dibadda. Nuruddin Maxamuud Ibraahim, Rasmi News Online.